waxaa kaloo aan jecelahay iminka inaan ku soo dhaweeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo isagu awoodda saari doona sanduuqa horumarinta Somaliland iyo qorshaha guud ee qaranka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda wasiirada xildhibaanada marti sharafta mudanayaal iyo marwooyinba waan wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u soo kacay inaan ka hadlo shay kaliya shaygaas waxa weeye waa maalgelinta qorshaha mudanayaal iyo marwooyin waxaynu maanta halkan isugu nimi inaynu daha furo qorshihii saddexaad ee qaranka ee sanadada 2023 ilaa 2027 waxaa ka horeeyay laba qorshe kii ugu horeeyay wuxuu ahaa qorshihii 2012 ilaa 2016 kii labaadna wuxuu ahaa 2017 ilaa 2021 haddaynu dib u milicsano labada qorshe hore waxaana way nooga hirgaleen in badanna inoogama hirgelin sababtuna waxay ahayd maalgashigii aynu ku tashanay ayaanayna soo wada gaadhin sababtuna waxay markaynu qorsheynaynay waxaynu qoondada koobaad siinay deeqda hay'adaha caalamku ayna siiyaan hay'adaha caalamka intii aynu ugu talagalay inuu u qoondeynay kamaynaan helin marka halkaa deris baa u baahan in laga barto derisku markaa wuxuu noqonayaa in inta badan inuu aynu isku tashanno hay'adaha caalamka ee waxna siiya way mahadsan yihiin intii hore inoo siiyeen way ku mahadsan yihiin inta dambeena siin doonaan way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan u baahannahay inaku si gaar ah isugu tashanno waanaynu ka bixi karaa haddii 4 shay haddii la sameeyo horta kow inaynu sameyno sanduuq harumar oo miisaaniyadda ka mid ah oo lagu soo ururiyo mashaariicda kala firqsan ee wasaaradda hoos timaada haddii baynu go'aansano 20% miisaaniyaddeena inaynu sanduuqa ku shubno waxay noo soo bixi doonaa ilaa 60 milyan bay noo soo bixi doonaa kaas waa qodobka hore qodobka labaad waxaynu u baahannahay inaynu runtii ka faa'iideysano qaybta gaarka ah ama private-ka loo leeyahay hantidooda waxaynu taas samayn karaa uga faa'iideysan karaa haddaynu sameyno shirkad saami leh iminka mashkiladda jirtaa waxa weeye haddaan 10,000 haysto oo dollar oo aan doonayo inaan maal gashado sidii aan u maal gashan lahaa jidkii ma jiro marka haddaynu abuuro shirkad saami leh oo qofku saami ka iibsan karo markuu u baahdana uu iibin karo saamigiisa waxay dhiirigelinaysaa maalgashiga iyo dhigaalka ay dhiirigelinaysaa tasaddexaadna waxa weeye inay dawladdu iibiso deyn xalaala caalamkoo dhan mashaariicda waaweyn waxaa lagu dhisaa deyn baa lagu dhisaa wadamadu intay u badan yihiin waxa la yidhaahdo treasury bonds bay iibiyaan oo dadka ka iibiyaan waxa weeye lacagtaada imkaysii deyn bay ugu noqonaysaa waan kuu soo celin waxna waan kuu saaraya laakiin kaasu maadaama inagu xaggeena xaaraan ka yahay sharciyan waxaynu isticmaali karaa kuwa xalaala deyn xalaala sukuk baa la yidhaahdaa halka bondka marka lacagtaa inta badan waxaa lagu isticmaali karaa meelaha dakhligu ka soo baxo sida korontada sida biyaha sida guryaha ayaa lagu isticmaali karaa taafraadna waxa weeye inaynu dadkeena ku dhiirigelinno inay badiyaan dhigaalka xagga dhigaalkeenu aad iyo aad buu u hooseeyaa innaka haddaynu reer Somaliland guud ahaan waxa lagu qiyaasaa 10% wixiina soo galay inuu dhiganno 9% waynu cunaa 10% waynu dhignaa laakiin marka la isku celceliyo caalamka 24% bay dadku dhigtaan
haddii markaa aynu ku dhiirigelino dadkeenna in boqolkiiba 15 ay dhigtaan dakhliga soo gala wuxuu sanadkii noqonayaa 525 milyan haddii 525 milyan ee dhigaalka baananka laga helo baanankuna dadka ay deymiyaan dawladdana deymiyaan markaa waxay noo soo baxaya intii aynu u baahnayn oo dhan ee aan qorshaysanay qorshaha saddexaad ee qaranka marka waxaynu u baahannahay in aynu haddii aynu nahay xukuumadda iyo shacabka Somaliland inaku inta badan ku tashanno inaynu bixinno kharashka looga baahan yahay in lagu dhaqan geliyo qorshaha qaranka ee saddexaad marka la eego qorshaha qaranka lacagtu u baahan yahay waa 2,600 milyan amba 2 bilyan iyo 600 milyan waxaad moodaa lacag badan inay tahay laakiin runtii marka loo eego awooddeena marka la eego GDP-geena oo kale iyo inuu qorshuhu qaadanayo 5 sano wax weyn maaha waa waxaynu samayn karraa weeye aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.